waxaa maanta magaalada Gaarisa lagu xusay maalinta haweenka adduunka oo ay qaramada midoobay u asteeyeen 8 bisha Maarso ee sanad waliba. xuska maalinta haweenka adduunka ayaa markii ugu horeysay lagu xusay wadanka Mareykanka. waqtiyadii intaasi ka dambeeyay ayaa meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah lagu qabtay shirar kala duwan oo looga hadlayo xuquuqda haweenka iyo dhibaatooyinka soo food saara haweenka. waxaana sidoo kale la qabtay munaasabado fara badan oo lagu xusayay. xuska munaasabadan oo lagu qabtay garoonka iskuulka Garissa Primary ayaa waxaa iska kaashaday qabanqaabadiisa ismaamulka Garissa iyo hay'ado fara badan oo ay ka mid yihiin Womankind, Islamic Relief iyo hay'ado kale. waxaa maamuuska munaasabadan ka soo qaybgalay gudoomiye ku-xigeenka ismaamulka Garissa, wasaaradda arrimaha haweenka iyo dadweyne kale. Leo ni siku ya furaha, si ndio? Leo tunasherekea siku ya kina mama duniani. Hakuna siku mtu anaweza kuwa na furaha kuliko siku ya leo. Maalinta hooyooyinka maalin ka farax badan kale ma jiri kartaa? Malaha. wasiiradda arrimaha haweenka ayaa dhamaadkii xalfadda nooga warantay xuska maalintan iyo ahmiyadiisa. maanta waxa waaye International Women Day, waa maalinta lagu dabaaldegayo maalinta hooyooyinka. waa maalin aad u weyn. dhibaatooyinka jirta waxa waaye magaalada Gaarisa lagama aqoonsano maalinta iyada waayo waa mashruuc mar hore ee looga dabaaldegin hadda ka hore haddayn bilownay. waa maalinta ugu horeysay. mashruucana waa mashruuc laga dabaaldego taariikh 8 bisha 3 sanad walbaba. dhibaatooyinka jiraan waxa waaye maamooyinka horta kama warhayaan maalintan muhiimadeedii iyo inayba jirtaba qaarkood baan ogeyn. annaga waxaan isku daynay county ahaan inaan ogeysiis gelino, aan waxyi gelino si ay iskugu soo baxaan maamooshinka, gabdhaheena shaqeeyaan dhammaan. waan soo baxnay iyo hay'adooyin oo nacaawiyaan. waan iskugu imaanay meesha sida hay'adda Action Aid in collaboration with Kamude Women Network, Islamic Relief, Womankind, intaas baa aad mashruucan uga qayb qaadatay. dhanka kale marwada ayaa ku nuuxnuuxsatay qorshaha ay ismaamulka Gaarisa ugu talagaleen in ay wax kaga bedelaan horumarinta haweenka. county ahaan maamooshinka waxyaalo fara badan bay u qabtaan. haddii aan ka bilaabo mashruuca mudane Ali Bunow qorana uu qabanayo waxaa ka mid waxa la dhihi empowerment of women. waxa waaye hooyooyinka la shaqo gelinayo. countiga waxay u qoondeysay lacag 100 milyan baa loo qoondeeyay. lacagta hooyooyinka lix looguma talagelin, waxaa lagu talagalay hooyooyinka, dhalinyarada iyo dadka curyaamiinta arrinta iyada ahayd assembly taala. waxaa markuu soo dhamaado insha Allah taala lacagtaasayto waa mudanaha sida uu qoondeeyay waa lagu tilaabo bilaabi. lacagtana 7 sub county oo dhan way ka faa'iideysanayaan maamooyinka kuwa nool. waan ogsoonahay Gaarisa waxa ugu shaqo badan oo waa maamooyinka. hadday noqoto caano lagadi, hadday noqoto qudaarta, waxa shaqooyinka dhan sameeyaan waa maamooyinka. marka maanta aad waxaan ugu farxi lahaa maamooyinka inay soo banaan bixiyaan ee imaadaan ee ayagana ka hadlaan dhibaatooyinka ay haystaan iyo meesha wax kala qaban lahayn. waayo waa hashi maalinta ay leeyihiin. marka tan hadda way dhaaftay insha Allah tan dambe oo 2019 ninku Ilaahay gaarsiiyo maamooyinka waxaan ugu digayaa inay dhamaantood soo baxaan.